أهلا مشرح مدحوينه حسبي قوي مدح الصرصرة حسبي قوي هذا قرن يهذا والله مدالياشة الجوي كأ إسكيدي من دمان ولا ذلك بري إلا قلبه سيأيو حقيقيان إن ذلك كذبا استبدل كل سنة مستقبل ما تشرف تكله هيك سوق يبقى شيء حفلة الألبوم سلامي ما أنت ومالين وين ومالين بقرن ومالين بلان ومالين أي على العيد وصوب بحذي بلشة سومالي الآن يشعب كذا ومالين مدو سومالي الآن وقويان كذي إن كذا كذا أنتوا ذبطن الوسطي ومالين مدو وتاجن استبدل توجن الله آيو استبدل أبورا مستقبل إفيا يقول شو اسكوفيلا هذا هو الشيء ده الله أساسي ميدا وجنس بدرون كأس سمدان مركي هراء وحكم الأحبانانا لما سياسة هي حساب تقرير وحكوس على إسنا مبدأ يباهي شرطي ومضو باهي ميدا وجنس بدرون كيونيون فور تشينج وح أبوري أقوياء لين سومالي لنا أو كل دقن جوالا ذلك يدبديس وأنا يراي من يسي دم شعير يدم قشة برشة أو كيكل كشيء بايها يا بيلها هايستا برشة أنت إذا بدل أو كسابسان قبيلة عدالة درب مصر يا إلى الونصادة هنتدا شعب قويله لما قلت ذا إن أنا ذلك لهاي مستقبل عم باستراتيجيات فوق أو كسابسان مستقبلك أنتاس أي كيكل كشيء ميدوغا سمدان waxa lagu aasaasay deeganaan aan caadifad lahayn waxaanu qorshihiisu qaatay muddo dheer oo uu si waji ah ugu fidayay dhammaan xubnaha iyo gobolada dalka waxa si rasmi ah loo shaaciyay dhamaadkii bishan abriil taasi oo waafaqsan qorshihii dheeraa ee lagu hagayay midowgan waxay garwaaqsadeen midowga isbedel doon in dalkan iyo shacabkaniba u ooman yihiin isbedel togan oo ku dhisan dawladnimo dhab ah si loo helo dawlad aan qabiil ku dhisnayn ee ku dhisan qaran iyo wax lahaanshiyo dawlad la timaada qorshe cad isla markaana hanata oo kasbata quluubta shacabka دولة كشقيسة باهيها أساسية شعب ما أنت تلكي اللي كم قل حكم إذا عافماتك وحكم إذا وحبرشدة وحكم إذا بيها يليك وحكم إذا إليه دقالات الكني ولا هايو مر مركز تبي سموك دسيك يلتم والله سوين وحنوقنا هاي جمهورية الصومال الآن مركز لقى هذا حدود بلاد مالين تيدل كلاقو صار نقضي إلا ما أنت ميلها قار اسبدل عافمات لقى ما هي ويوين كقارو عود أنت ليك بح hargeysa oo aynu ku nooloo caasimadiisa Jamhuuriyadda Soomaaliland maalintii la soo noqday ilaa maanta in gooniya biyaha cabta halka dadka kale aan biyaha cabin waxa loo yaqaan filayay waxa la yiraahdaa labada gacmood ku meedhaan daamaha qaarna gacan khaliye ku meedhaan taasina ay tahay dawlad dib u soo waa in la helo dawlad dib u soo noolaysa قلوبته يرجع الشعب كان أو مالين تكسي دمبيسا مقدي سيجلسه مالين تكسي دمبيسا مقدي أي سيجلسه وينو شيء نايو دليرة دي دل كانوا ولا هاي بدروا كمدي ويكبحت وحكس على نوع رجلان أي دل كقبا إن بدروا دل كشوكتو دل واوينينا رجلان دل كي يقوس بكتاجي وايو أنت لو دل كوسون نقول وشان يلا واتسنا شان يلا واتكاسنا أي دل كشوكني هل شيء ما أوران كرنو وحنا كجارنا هركي لو تلاقى هل شيء ما أوران كرنو وحنا كجارنا هركي لو تلاقى دل كانوا حلي إلى نقالة ويكمديين حولها النار ويكمديين بيرو ويكمدي تاي فيشن كأي كلوميسيو
intaa midna wax isbedel iyo horumar la taaban karo aynu ka gaadhay ma jirto dhammaan wax mustaqbal la ilaahay oo lagu xisaabtamaya ma jiro dawlad ku dhisan cadaalad sinaan iyo wax wada qabsi in la helo dawlad la dagaalanta musuqmaasuqa iyo lunsiga hantida shacabka intaa in la helo ayuu ahaa midowgan isbedel doon hadafkiisu oo lala dagaalamo intii aan hore u soo sheegay in qabyaaladda dawladaha ka kala yimi gobolada Somaliland gaar ahaan lixda gobol ee waaweyn madaxda xisbiga cadaaladda iyo daryeelka wacyi oo ugu horeeyo musharaxa bulshada tirada badan injineer Faysal Cali Waraabe ku-xigeenadiisa afhayeenada guud ahaan garabada xisbiga dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh salaanka bacdi midowga isbedel doonka Somaliland ee Samadoon horta midowgan waa midow ay ku midoobeen bahweynta alinta jecel badbaadada Somaliland ee Soomaaliya dhalinyarada Somaliland ee ku kala dhaqan guud ahaan gobolada dalka iyo dibadda waxa midaysay aragti laakiin samay midaynin xaafad iyo xeeladaha midowga isbedel doonka Somaliland ee Samadoon wuxuu aaminsan yahay Somaliland hadda jirta sidii loo badbaadin lahaa inay laba mid u tahay midda koowaad midowga isbedel doonka Somaliland ee Samadoon ugu horeyn aasaaskiisii dhalinyaradu waxay ka fikireen laba mid in systemka hadda jira ee fadhiidka ah la weeraro oo systemka saa laga taxado gudoomiyaha xisbiga musharaxa xisbiga mudane Faysal Cali Waraabe hoggaanka sare ee xisbiga garabyada xisbiga garabka dhalinyarada haweenweynaha garabka dhalinyarada bahweynta kale ee biladay maslaxan iyo wadashan warakaysan maanta lagula sugan baana saxaafadda dhalinyarada caasimadda magacaydu waa Bashiir Maxamed Bashiir waxaan ka socdaa gobolkii Boqornaa caasimadii labaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Gobolka waxaan ku faraxsanahay caawa anigoo ku sugan Hargeysa aragtida iyo mabda Samadoon baan idin qaadadigi doona xigsigiisa waxa uu rajeeyo waxa uu gaarayaa dalciisa halka uu socdo maxay isku keenay maxay dhalinyarada gobolada bariga iyo bariga inay yimaadaan oo ay hal mabda hal aragti hal higsi hal ismayna yeeshaan anigu waxaan garwaaqsanahay yaqiinsanahay in tamartayda awooddeedu tahay qaranka loogu baadoonayo qaranada kalada jaanqaada waxaan aaminsanahay in dhalinyaradu ay tahay lafdhabarta iyo araxda bulshada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan aaminsanahay doorkii dib u xoreyntii iyo dib-u-yeelitaankii Jamhuuriyadda Soomaaliland dhalinyaradu doorkii iyo tamartii ay ku lahaayeen waxaan yaqiinsanahay in dhalinyaradu tahay cudurda iyo caqliga iyo tamarta lagu baadoonayo qaranada kala jaanqaada waxaan aaminsanahay in Soomaaliland tahay qaran la wada leeyahay waxaan garwaaqsanahay yaqiinsanahay inaanu nahay cudurda iyo caqliga iyo kuwa lagu keenayo isbedel lagana hoggaanka meesha looga helayo xukuumadda xumadaran ee dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland cudurka cadowga xilkaambiga taariifka nacaybishaha iyo kalaqoqobka iyo qabyaaladaan loo kala naxay keentay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله كل قول قال بيتوبنا نحريستي ربنا وين حيسا وانا متي بشارة أدوي إلى الله سبحانه وتعالى ما هذا سكاله مركا حيتا وحانوهم بريين يا وصورة وين يا دليرة runtii maskaxda furan ee waxa weeyaan wax fara badan iyo aafo badan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka badbaadiyey waxaan leeyahay soo dhowaada oo ku soo dhowaada xisbigiinna runtii waxay ku dhisan cadaaladda iyo daryeelka ee idinkoo aan laydin xodxodan idinkoo aan laydin tashkiilsan idinkoo aan lacag laydinku soo jeedin idinku caqligiinna iyo maskaxdiinna iyo garaadkiina iyo garashadiinna aad ku fahanteen inuu yahay meesha keliya ee aad mustaqbalkiina ka dhex dhisi kartaan waxaan leenahay soo dhowaada hambalyo soo dhowaada waxaan idiin sheegayaa
oo aan dhalinyarada leeyahay samadoon runtii waxa u tihiin bilow ama waxa weeyaan horukac dad fara badan oo dawaqsan oo la yaaban sida ay wax u wadaan siyaasiyiinta kale ee markaa waxa weeye axsaabta kale ku jira oo dhinaca u dhaqaaqa garan la baa hortu sabab u noqon doontaan inay markaa indhaha kala qaadaan oo waxaad fahanteen ay fahmaan runtii ma jecli hadalka inaydu ku badiyo alxamdulillahi rabbil caalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya waddiin sala allahu calaa muxammadin wacala aalihi wasaxbihi wasallam wabacd awalan madaxda xisbiga daryeelka iyo cadaaladda ee ucud uu ugu sarreeyo injineer faysal cali waraabe howlwadeennadiisa ku-xigeenadiisa afhayeenadiisa dhammaan sidoo kale madaxda ururka iskudadoonka ee samadoon maaweynta ka soo qayb gashay madasha bilalka ee boqoran dhammaantii waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacda salaam koley midowgani wuxuu u taagan yahay samadoon iyo midowga isaga iyo la dhex maraya waxa weeye faahfaahinta dad laga bixiyey kuma noqonayo anigoo ku hadlaya injineer salaam maxamed oo ku hadlaya gobolka sanaaga magaalada Ciakaabo kolley isbeddelkani waa mid saameeyey guud ahaan waddanka Soomaaliland kadib markii taariikhda dib loo raacay ama waxa weeye dhibaatooyin badan ay waddanka kabanayeen ay maanta xal u noqotay dhalinyarada inay ka jawaabaan لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قدوميها حسبك أعلن أهلا مشرح مدحويني إنجنير فيصل علي حسين مسؤولين حسبك أعلن أوركا سبطون إيش بدلدونكا وما تقصوا بيرك حسبك أعلن iyo dhammaan marti sharafka dhalinyarada haweenka culimaadiinka saxaafadda aad baan idin salaamaya dhammaantiin runtii aniga sharaf weyn bay maanta ii tahay adigoo xoghayi dhalinyarada in dhammaan dhalinyaradii isbedeldoonka qabiildiinka qarandoonka ahayd ay xisbiga u cid ku soo biiraan sharaf iyo farxad gaar ah ayay ii tahay waa sababaha aan marka horeba ugu biiray xisbiga cadaaladda iyo daryeelka labada xisbi ee kale waxba ka sheekayn mayno ku tiigaani mayno waxqabadkii iyagoo qorona madaxweyninta qorona guddoomiyey baarlamaanka waa idinka arkay halkuu waxqabadkoodii mar iyo xumaantoodii in dadkii hankii iyo qabkii ay ka dilaan waqtigii annagoo dhallinyarahanu qaxootiga joognay rajaanu lahayn laakiin 26 sannadood kadib in ummadda rajadoodii lagu bedelo 4 qof oo boobta waddankii oo dhan wax la aqbali kara maaha gugii carabta ee 2011 ka bilaabmay Tunisia waxa sameeyey dhallinyaro samadoon oo kala halkay gaadheen way loogay raggii aan loodi jirin inay afka ciidda u dareen inagu xafad iyo qalalaase midna samayn mayno isbeddelkeenu waa qalin aan qabyaalad ku shaqaynayn inaga arkayna mustambeed iyo gawstambeed inta gawstambeedka la dhiganaya waa dhalinyaradiina hankii la doonayay waqtigiina in la baabi'iyo ha u qaadanina in reera loo danaynayo Hello, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilahi Allah mahadna subhanahu wa ta'ala. Ilahi Allah keligi mahadna. Ilahi subhanahu wa ta'ala. Ilahi gaa inoo shubay roobkiina ee naga aqbalay ducadiina aynu shukrino. Ilahi subhanahu wa ta'ala haddaynu shukriga badino waa inoo siyaadin doonaa marka waxaan leenahay ilaahay waa ku mahad abaartii biyo la'aantii ilaahayga naga soo jeediyay ilaahay nagu waaro ilaahay dalkeena dal midaysan ka dhigo
أرتمانته ومعلم وناكسين الحمد لله رب العالمين دعاء ولا أقبل الرحمة ولا ركتها قيل ربي نوشري معلم في عمنا إن شاء الله تعالى وحكى سيحان دورنا قال إلهه لأن يرتن أرتا مركي إلى المقلة اللي نراق بجري اللي حقوقها أدبر بقينا نو وحمس لها سيدي عرب سبرينجا أي كعلو سمين دونانو مقالوا يكي مظاهرات كسمين دونا مقاولناها فرت قوحي مركي شلتان وقالنا halkay ergoyn soo dirteen oo doonaysa xusbigan ku soo kulantaana dawladii iyo shacbiga waa relief way nafisay baqri waa ka baxay tala fiicana waa gaadheen ilaahay ma hadii way subhanahu wa ta'ala waxa ka muuqata inaydu silsiladihii qabiilka ay iska jarjarteen iyo xarkihii iyo gidaaradii la idinku kala qaybinayay inay burburiseen ayaa ka muuqata waxaa ka muuqata halkan marka khudbadihiinii dhegaystayna waxaa la hubaa oo xaq ah oo sax ah inaad mabda ku socotaan haddaad kharash doontihiin waa taqaana halku kharashku yaalo dee kulmiyo wuxuu yaqaana wadanigu yaala kharashka wadanka kuwaasaa tegi laheedeen laakiin waxaa ku socotaan mabda iyo ina future iyo mustaqbal yeelataan markaad arkiiseen sababaha isku kalifeen inaad isku tagtaanna waxaad moodaysa inaad qalbigayga kala baxdeen intaa maanta aad sheegteen waa inta afrikana ragaadisay adduunkana kala reebtay musuqmaasuqa eexda qabiilka isku dulnoolaanshaha waa inta adduunka kala saartay oo markaad aragtid magaalada xadka ku taala ee Mareykanka iyo u dhaxaysa Mexico wadanka la yiraahdo waa magaalooyinkooda seta wajaalo kale ah dadku waa isku dad climate-ku iyo cimiladu waa isku mid dhinaca Mexicana dadka ku nool waxay la nool yihiin dadka wadamada soo koriyo kale dadka Mareykanka xagga ku nool waxay nool leeyihiin de Mareykanka adduunka ugu dhaqaalaha badan halka waxa ku kala kaxeeyay waa systemka dawladnimo ay kala qaateen way marka dawladaha meel adduunka meel faqiir ma jirto waxa kala saaro oo kala hara hoggaanka kulba marka wadanka haya wadanka Singapore la yiraahdo waa wadamada adduunka maanta ugu taajirsan markii hore waxay ahayd meel yar oo baaxmijiriyo Ingiriisku deked yar baa waxa ku nool Chinese Malaya iyo Indians oo Ingiriisku keenay oo shaqaale ka ahaa dekeda 1965 kii markii ay ka baxeen ka goosteen Malaysia la isma lahayn way noolaanaysaa